odayaasha dhaqanka ee gobolka Sool iyo ganacsatada ayaa ku wareejiyay gudida qabanqaabada caleema saarka Suldaan Mustafa Maxamuud Awseed Sooriyo ay kaga qayb qaadanayaan caanadunka bishan balliga bariga magaalada Aare Cadeeye garaajamac garaad Ismaaciil iyo qaar ka mid ah culimada oo ka hadlay goobta ayaa sheegay saldanada beesha Suudaanka ay dooran doonto inuu noqdo kii loo aayo isla markaana bulshadaasi u horseeda nabad iyo baraare waara saakayna geela iyo xoolaha la kala wareejinayo dadka qaar baa waxa laga yaabaa in dawad magac waxba dadka lagu ibtileeyo in saaka mag iyo wax la wareejinayo taa ma aha waa mid ka khayr badan oo ka qurux badan caleema saar in isina oo suldaan umada suldaankeedii aba la wareejinaya Sooriyadii iyo wixii dadka xigaalka ah ee walaalaha ah hawsha laga qaabili lahaa ilaahay waxaan ka baryayaa subxaanahu wa ta'ala cid kasta oo hawsha wanaag kaga shaqaysay oo ilaa maanta ku jirta rag iyo dumar isimo iyo odayaal iyo dhalinyaro iyo waxgaradba dal iyo dibadba ilaahay dambigooda ha dhaaf ka horeysa waxaan soo dhaweynaynaa suldaanka cusub ee beesha Fiqishini ee hawshan hordhac u tahay boqortooyada waa soo dhaweynaynaa si kalsooni leh baan u soo dhaweynaynaa iyo beeshiisaba waana la leenahay Fiqishini waa la leenahay boqortooyada taas waa sida weey ragii dhalinyarada ahaa ee dhulbahante ama cid kastaba ha noqdeene xoolaha maanta hawlgalka keenay marka u horeysa waxaan ugu ducaynaynaa in ilaahay khayr ugu bedelo waxtarka caleema saarka iyo boqortooyada geelan halkan dabadeeda fadhiya in laga dhigo waxtarkii ugu horeeyay ee mataqaanaa caleema saarka sidii loo gudoobi lahaa iyadoo mataqaanaa taana waanu u nimid waxaanu leenahay odayaasha reer Fiqishini halka joogaa ha gudoomeen geela waxay la tahay hadhow marka la isu yimaado ummad badan baa imanaysa oo dalal badan ka imanaysa ragga haddeer meesha isugu yimi waad garanaysaa la ishaybsan maayo waa dhulbaanta uun wixii reer Fiqishini tarxa iyo qof dhifa caleema saarka cidda ka soo qayb geli doonta oo miyi iyo magaalaba leh oo deegaanka barwaaqada meelaha ah waxay u badnaan doontaa haamaha dhulbaanta ama meel fog ka yimaadaan ama kuwa la adeer adagu markii hore rag yar baanu ma ahayn laakiin aad iyo aad baanu arkaynaa in caleema saarka garaadka suldaanka reer Fiqishini oo aad loo daneynayay in cid waliba meesha ay joogtay sida magaalada Laascaanood iyo tan Aare Cadeeyaba in looga soo qayb galay kalgacal uu ku dheehan yahay ugu mahadnaqaynaa shirka iyo kulankan halkan la isugu yimi beesha dhulbahante iyo beesha Fiqishini ay isugu yimaadeen beesha Fiqishini lagu gudoonsiinayo geela halkan jooga oo lagaga qayb qaadanayo caleema saarka Suldaan Mustafa Maxamuud Awseed oo caleema saarkiisii dhow yahay marka arintaas waxaanu ka nahay marxaati munaasabada xafladda waxa maanta loo qabtay oo la isugu yimi geel dhan 20 awr oo ay beesha dhulbahante ugu wareejinayso caleema saarka Suldaan Maxamuud Awseed beesha Fiqishini inay ka gudoomaan sidii odayadii hore sheegeenna suldaankani wuxuu ismadii hore kaga duwan yahay ibni waliba isaga ismaamulay laakiin anigu waxaan leeyahay Suldaan Maxamuud Awseed inuu Mustafa Maxamuud Awseed inuu noqon doono caqaayadii isku xidhaysay dhulbahante iyo Fiqishini dhanka kale gudida caleema saarka suldaanka ayaa ka gudoomay geela Sooriyada ah odayaashan iyagoo uga mahadnaqay hogaanka beesha Aare Cadeeye annagu ku hadlay gudiga caleema saarka waan idinka gudoonay waadna ku mahadsantiin waxaana ay muujinaysaa arintani
jacaylka iyo maxaa la yidhaahdaa dadka macni waxa ka dhexeeya oo ah wax runtii aan hadeerto taariikh meelahan laga sheegay aan lagu soo koobi karin annaguna waxaan u qaadanaynaa farxad weyn bayna gelinaysaa ka imanaysa meel kasta ay ka imanayaan isimo iyo waayeel iyo waxgaradbana gacmo furan iyo niyadsan iyo nabadgelyaanu ku soo dhaweynayna aad iyo aad baan mar labaad ugu mahad celinayaa ragga hawsha tan sharafta leh maanta halka kan la isugu yimi waxaan halkaga gudoomaynaa waftiga geel aad iyo aad u qaaliya oo loogu talagalay ka qaybgalka caleemasaarka suldaan mustafe maxamuud awseed waxaa arrinkan uu yahay astaamaha koowaad ee soo celinta wax wada lahaanshaha iyo waxa la isu yahay ee beelaha dhulbaanta iyo Faqsini waxaan ugu ciddii soo maamushay hawshan xoolo ay wareejinayaan beesha aan garaadka u ahay ee dhulbaahante kuna wareejinayaan beesha aan garaadka u ahay ee Faqsini xoolaha waanu idinka guddoonnay xoolaha aad keenteen waadna ku mahadsantihiin intii ka shaqaysana ilaahay khayrkeeda ha siiyo geelaa waanu guddoonnay caleemasaarkaanu guddoonnay ugu dambeyntii magaalada Adhi Cadeeye ayaa laga dareemayaa qabanqaabada suldaanka Suldaan Mustafe Maxamuud Awseed xilli ay maansheeyeen roobabkii gugu wahibaaqeed leh Somali News TV magaalada Adhi Cadeeye.